إثيوبيا صاحب عن الله أو أبتن هذا الدجال كان لقليس أو ديجيدا نوهوريس أو عدوجي نلا حرينيس أو محاكرة نلا جوكتواي أو مدحدي الدلكين أي صوب وقنا إيمانين وحسن شيخ محمود أو ما أنتي لقبتي وحام بلن كايا قاضية مركاد مقال كان دم يسطه حوجها كجرنا أدو حدود إن هذا آمنين بور إسكو غرين تحسن شيخ محمود وحل كان دولان كعد وقو قاضيو مامولكا كونفور قلبيد وحان هل كان إذن كبريا وجيغا دبتا يا حسن شيخ محمود مردن بنا مرة بينا إذن كوكو عليو حقتنا ميل كالي وان ميشايدا أهين كأد هيلي ميسي waxaa ku jira dokumentiyo muuqaale kala duwan oo aan soo ururiyay halkanna idinkugu tafatiri doono waxaan qabanay maanta xasan qabasho kulul oo uu ka shalayn doono shacabka Soomaaliyeedna ay ogaan doonaan wajigiisa dhabta ah barnaamijkan qabyaalad iyo qabiil waa uu ka maran yahay aniguna maba yihiba shakhsi ay shacabka Soomaaliyeed min jeclaysi iyo qabyaalad ay uga barteen waxaan rabaa inaad fariintan iga sii gudbisaan muuqaalkan sii laygareysaan YouTube-kana ku soo birtaan aad ba mahadsantiin marka koowaad xasan waa kana isagoo madaxweynaha Soomaaliya ah waa isla mudaxireedkan ma ahan mar kale oo sidan u hadlayo إثيوبيا صاحب عن الله أو أبتن هذا الدجال كان لقليس أو ديجيدا نوهوريس أو عدوجي نلا حرينيس أو محاكرة نلا جوكتواي أو مدحدي الدلكين أي صوب وقنا إيمانين آديات من كنا وسياسيين الصوماليات جارهان أمانك أيو كسر شقية صوماليا وإنوش شيء هجر دامدي وحسن شيخ محمود كلك عي مجاهدين تي أورلف يسيدا ملكي الصوماليات الصومالي قلبهد وغشاقي إن أي إثيوبيا يهين خيانيين شعبكي الصوماليات إلى إيمان تيدا إن حتى دستوركي وغرطي وكساري دولكاسي إساقو حلالي إثيوبيا دستور كمان تي حسن غرطي الصومالي دو كوهشيسي وبربوريي كميل غاركاها كان هذا تشيبك وجرو دولك NFD iyo Soomaali galbeed kuma jiraan wuxuuna labadaas dhulba u xaleelay Kenya iyo Ethiopia waa kana ila dhageyso waa siyaasi Soomaaliyeed ayaa sharaxay حسن شيخ هدانا قلدانين مدحوينه حسن شيخ markuu xukunka 2012 oo yimid ayuu dib u soo celi Ethiopia way shokaansadeen way la hadleen waxay ka dhaadhacsiiyeen inay wadanka la qaban doonaan wuxuu qaban doonaa laba qodob waad haysataa qodobka saddexaadna xasan oo afkiisa inaga leh dhulka Soomaali galbeed waa Ethiopia mana tagi karo hadaanan casuumaad ka helin Abiy Ahmed bal hal mar ila arka iyadana dowladda Ethiopia anigu madaxweynaha dowladda Soomaaliya ahay dowladdaas deegaanka dalka Ethiopia ka tirsantahay ayadoo aan casuumad martiqaad aan ka haysanin dowladda dhexe Ethiopia maanu batin karin marka ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa martiqaadkaas loo fidiyay waxa tahay madaxweynaha ugu horeeyay Soomaaliyeed taga deegaanadaasi adiya waxa ku soo hartay siyaasiyiintan maanta ay siyaasadda isku hayaan xasan ee walaalihiis ama lafta gareen ha noqdo ama Siciid Cabdullaahi Dani oo isaga madaxweyne ka dhigay ha noqdo ama Axmed Madoobe ha noqdo ama qoorqoor ha noqdo ama cid kale ha noqdo cidda dhibaataynaysa in uu isaga yahay waa kana xasan oo marqaati furaya lehna in ay raggaasi shisheeye aadaan anaa ka dambeeyo waxaan halkan idinku cadeynayaa in xasan uusan mucaaradnimo aan isaga ahayn aysan jirin oo isagu uu mucaarad isku yahay marka aad rabtid xasan in aad ogaatidna aad isaga hadaladiisa ka dareemaysid in xasanku uusan laftigiisu xataa isku meel iyo isku wado u socon bal ila arka dad siyaasiyiin oo Soomaaliyeed inaad dibadda ka doontaan idinku ama kuwa idinka dambeyn doona ay dibadda ka doonaan oo jawigaas oo sidaas u ekaado ha sababayna waa laga yimiday meesha shalay laga yimiday yaan loo noqonin
taariikhda waxayna bare nin kastoo Soomaali ah oo cararay oo qof ajnabi ah ama adow ha ahaada ama xabiib ha ahaada u tagay magan galay nin kaloo Soomaali ah ayuu ka cararay xataa haddii dadkeena maanta diasporada qurba joogta shalay markay dalkan ka qaxayeen iskama ayan qaxin dad Soomaaliyeed kaloo walaalahooda ay ku afiid ku diin iyo ku dadnayeen ay ka qaxayeen waa hagaag halkaas maxaa kaaga cad marka ilaah baan idinku dheershay aniga waxaad iiga barateen nacaybka Itoobiya adduunka xabashi baan ugu nibcahay biyaha yagii iyo qaybo ka mid ah dhulka yagii ayay ku soo xadgudbeen waxaan anigu hormuud u ahaa kacdoonkii dhalinyaradii Puntland looga saariyay Oromada iyo Xabashida waxaan ka soo qayb qaaday oo af iyo adin ku difaacayay dagaaladii Mooyaale ka dhacay ee Soomaalidu ay kula dagaalamayso Oromada kii garbaciisa intaba heer aan xabashi ka joogana waad garanaysaa ilaah baan idinku dheershay aniga iyo kuwa ila midka ah xasan sheekh maxamuud ma ku daba fayli karnaa waa xasanka aan hadda idan baray aniga oo xabashi nicib xasan ma igu hogaamin karaa xabashi baan nibcahaye kaalay anaa madaxweyne idiin noqonaya wuxuu inkiray waa marka koowaade wuxuu inkiray qaybo ka mid ah dhulkii Soomaaliyeed ee Soomaali galbeed iyo NFD wuxuu si cad u leeyahay dhulkaasi Itoobiya ka tirsan yihiin madaxweyne ma aan markaas waa shacab dastuurkii uu hadda qortay buu dhulkaasi ka saaray mana codayn kartaan ayuu yiri doorashooyinka Soomaaliya xildhibaanadii oo war madaxweyne berri maxaad ku gorgortamaysaa haddaad adigu dhulkii ka saartay Soomaaliyeed Itoobiya oo dhulkaaga xorta kugu soo xadgudubtay maxaad ku gorgortamaysaa horta isaga dhulkii ka saaray khariidada isagaana Itoobiya u ansixiyay una xalaaliyay waa marka saddexaad heshiiska ama mowgii Muuse Biixi iyo Xasan iyo Galeen Abi Axmed isaga ka dambeeyay ilaa iyo maantayda waxaan aaminsanahay in Xasan uu boor isku qorinayo oo ay Abi Axmed ay iswataan waxaan arkay iyagoo leh xildhibaanada Itoobiya taageeray ma taqaanay xasaanadaha laga qaado waa qaran dumis maya ma ahan qofka aan ka aqrisanayo qofka qaran dumis ku sheegay xildhibaanadaas Xasan waxaan aaminsanahay inuu isagu qaran dumis yahay madaxweyne Farmaajo wuxuu u dhiibay ciidankii Soomaaliya oo kumanaan kun ah ayuu u dhiibay xasanow arrinta koonfur galbeed Itoobiyaanimada aad ku shaabadaynaysid walaalow waan ku garanaynaa ciidankii Soomaaliyeed baad burburisay tusaale madaxweyne Farmaajo markii uu rabay inuu maamulka Jubbaland farageliyo Axmed Madoobe ma ciidamo Kenyaan u adeegsaday ma ciidamo Itoobiyaan ah buu adeegsaday maya ma adeegsana ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu inta diyaarada ku guray ayuu ka dajiyay gobolka Gedo wuxuu doonayay inuu Kismaayo ka dajiyo maanta Xasan ciidamadii loo dhiibay inta burburiyay walaalayaal yuusan idan gaadin wuxuu rabaa in ciidamo masaari ah oo shisheeye in uu lafta gareen ku weeraro lafta gareenna waa fahmay ciidankiisi koonfur galbeedna wuu isku ilaalinayaa Itoobiyaankii dhulkeena xooga ku joogay ama amisom ha ahaadaan ama kuwa kale ha ahaadaane hoostu ka galay xasan baana horey wuxuu u yiri haddaad aragtaan siyaasi Soomaaliyeed oo shisheeye galay nin kale uu ka cararay xasan isaga isku jawaab furay oo markhaati isugu filan xasan ciidamadan masaarida ah ee uu Soomaaliya keenayo annaga ku taageersanayn haatanse soo wax u wado waan saluugsanahay xasan dastuurkii Soomaali kuma qancin oo Soomaalidii dhexdeeda siyaasad kuma heshiis ah sidee ayuu doonayaa inuu Itoobiya ula dagaalamo sidee ayuu doonayaa inuu xabashi dalka uga saaro war xasanow anaa ku raacayo Itoobiyaan kala saaraya dalka warcad iisha Puntland heshiis lama ah oo koonfur galbeed heshiis lama ah oo maamul goboleed dalka heshiis lama ah markii xasan kee raacna ma waxaan raacnaa xasankii shalay lahaa dhulka Soomaali galbeed waa Itoobiya oo jabhadii ONLF ee halgamayaasha ah waa ubo oo waa argagixiso oo qaraxa ka dhaca Gaarisa waxaan uga naxaa si aan uga naxin qaraxa xamar ka dhaco ninkii lahaa ninkaas aniga ma wadaniyad buu iga sheekayn karaa ilma adeerayaalow shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay gaar ahaan shacabka wadaniyiinta yaa la hor ordin baasha
ciidamadan masaarida ah ee la keenayo iyo ciidamadan Itoobiyaanka labadaba waxba isma dhaamaan waa laba xabash waa laba shisheeye miyaa la leeyahay maanta labaduba hanaga wada baxa soo xasan shisheeye oo Masar ama soo dhaweysan lafta gareenna kuma haysto maxaad u soo dhaweysanaysaa shisheeye oo Itoobiyaan bal su'aal baan idin weydiinayaa Itoobiya iyo Masar markay noqoto nin walba dantiisu keebu ka dhex arkaya u wanaagsan waxaan leeyahay xasanow fashilka Soomaaliya hoggaan xumada meeshaas dhigay waa adiga waxba boorha isku qarin Itoobiya waa ka dastuurka aad hadda qoratay fiirsha akhriye dhulkii Soomaali galbeed ma ku jira waa maya aniga xasankaas markaa waxaan ka sugayaa in uu Itoobiya la dagaalamo waa maya waxba boorha isku qarin ummadda Soomaaliyeed iscasi ummadda Soomaaliyeed fadeexad baa dhexda uga jirta been baad sheegaysaa lafta gareen haddaad rabtid inaad faragelisid aw ciidankii Soomaaliyeed madaxweyne farmaajo ku dhigay maad ka dashisid koonfur galbeed bal lafta gareen hadiide maya waad burburisay ciidankii Eritrea waad laysay safaaradahay waad gadatay meeytidii qabrigii baad kala soo baxday shacabkii Soomaaliyeed waad barakicisay canshuur baad ku soo rogtay inna ka aamin maysa markii maanta adoo siyaasad wato oo Masarna le kursiga igu difaaca dastuurka xunka ayaan qortay igu difaaca lafta gareenna soo qabtay cid ka yeelaysa malaha aash indha qabiil bay yeelanaysa كجو انت حسن كسوك فنيا وبالله توفيق